caruurta Soomaaliyeed ee guryaha lagu xirayo ayaa soo wajaha khataro dhanka nolosha ah. hooyada iyo aabaha dhalay caruurtani ayaa guryaha ay ku xiraan marka ay shaqo tagayaan iyaga oo markaasi ka sii xira lugaha. tani ayaa waxa ay sababtay in qaar ka mid ah caruurtani xargaha isku gooyaan ama korontada farafareeyaan oo marka dambe ay ku qaraxdo ama ay helaan kibriid iyo wixii la mid ah halkaasoo ay ku gubaan wixii ka hor yimaada iyaga oo ku ciyaaraya. waatan iyada oo ka faaloonaysa mid ka mid ah hooyooyinka caruurta guryaha ku haya oo la yiraahdo Faadumo Xasan oo loo yaqaano Alleerta Isii. ciyaalku waxa laga cabsanaa amba inay kibriid isku qabtaan amba inay wasaq cunaan intaas laga baxana. ciyaal badan oo Soomaaliyeed ah ku baabeen oo kibriid heleen oo isku shideen oo daahman iyo firaashmo isku qabsadeen oo ku dhigteen. lugta naafka noqon kartaa waa jiidi karaa xariga waa isjibi karaa sintay kala bixi kartaa kuma fikirayaan ayagana intaas. caruurtani guryaha lagu xirayo waalidiintoodana ay ka shaqo tagayaan ayaa mararka qaarkood waxa ay sababtaa waxyaabo aad looga naxo. waalidiinta ayaa danta ku qasabta oo ay sidaa sameeyaan badiil kalena aysan haysanin, waayo waxay baadigoob iyo orod ugu jiraan nolol maalmeedka iyo kirada guriga ay degan yihiin oo bil walba kowdeeda laga rabo, haddii kalena dibadda loo soo saaro alaabtoodana lagala haro. ama jiraan meel caruurtana lagu xanaaneeyo isla mar ahaantana wax lagu baro marka laga reebo laba goobood oo laba xaafadood oo kala fog ku kala yaala oo mid ka mid ah ay qarka u saaran tahay in la xiro. magaalada Sancana ay aad u weyn tahay, xaafad kastana ay u baahan tahay in mid laga furo. waxa kale oo jira hooyooyin caruuro ku haya xaafadaha oo lacag yar oo kira ahna ka qaata waalidiinta caruurtooda ay u hayaan, halka waalidiin kalena ay lacagtaasi awood u lahayn inay bixiyaan. guntii iyo gabagabadii caruurtani qaar ayaa waxa ay ka qaadeen xiridan guryaha lagu xirayo lugtana laga sii xirayo xaalad nafsi iyo dhimirkooda oo wax u dhinma. waxayna u muuqataa in caruurtani cidna u maqnayn mustaqbalkoodana uu mugdisi gelayo. محمد علي جحا، التلفزيون كقرن كصوماليا، صنعاء، يمن.